saddexda ciyaaroodna waa laga badiyay tan Soomaaliya u gudubno taas anada stage ee noqon doonta Hagen saddexdii ciyaarood waa laga badiyay 8 gool baa laga dhaliyay صح markii ciyaaraha Soomaaliya dheelaan waa koox wanaagsan صح maxaa keenay dib u dhaca in saddex ciyaar oo dhan laga badiyay اوكي hadda marka kooxda Hagen markaan ka hadalno oo maadaama hadda fiiriso hadda inta badan ee kooxahayna oo ka dhigay horyaalka Soomaaliya Soomaali Premier League ama Serie A qof si u yaqaana kooxahayna ma laha kooxo oo macnaha lama dhigi karo international experience macnaha kooxahayna waa kooxo inay dibadda ka dheelaan haddii adayna aan markaas haysan ciyaaryahano oo macnaha ku haboon oo leh international experience waxa jiro hadda matalan waxa laga yaabaa kooxdaada kaliya in ay jiraan ciyaaryahano ku wanaagsan dalka gudihiisa hadda dibadda aadana macnaha aan wax soo kordhinayn kuwa waxa jiro oo macnaha marka dalka dibadda wada taray macnaha isbedel weyn ku keenayo oo marka dalka lagu soo noqdana aan saas u muuqan marka aniga hadda waxa aaminsanahay kooxdan Hagen kaliya ma aha hadda kooxaha way badan yihiin afar way kuwa aadayo ka qayb galaya ciyaaraha kooxaha Afrika laakiin waxa meesha maanta koox kasta oo Soomaali ah ama horyaalka Soomaali Premier League dheelayso oo dalka ka baxdo aado dibadda waxyaalaha kaliya oo aqabad ku noqon karo waxay tahay international experience wax la ma haysano ciyaartooyda oo waaweyn oo experience gormaad hesho horta waad inaad ciyaarahan oo kale aad safataa kadib kooxdu waxay yeelanaysaa experience okay ciyaaraha premiershipka Soomaaliya ciyaaryahanno badan ayaa ka ciyaara qaarna dibadda ka yimaadeen experience oo dhimanta ma dhihi karno last 15-20 years kooxda Hagen kooxaha ugu fiican ku jirto wadanka صح laakiin guul darooyinka noocan ma dhihi kartaa ma tababariye ka socotaa ma hawadii oo isbedelka wadanka kale ay tageen bahaysata say wax u jiraan horta cimilada oo wadanka horta tagaysa horta way ku xiran tahay haddana tan kalena macnaha ciyaaryahan qaar waxa jiro aan macnaha hamili karin pressure-ka oo macnaha wadanka kale ama taageerada kooxaha kale aadayaan qalqalay oo qalqalay aan macnaha wili aan la qabsan macnaha markaan ku dhahayo international sport waxaan ka wadaa ciyaaryahano oo la qabsan karo oo macnaha buuqaas iyo qeyladaas garoonkaas weyn oo wadankii oo macnaha dadkan waxay ku dheelayeen Muqdisho gobolka Banaadir kaliya ku ekaayeen ma ahan kooxda Hagen hadda inay baxdo ma aadi karto oo magaalooyinka kale ama wadamada deriska macnaha maya ma aadi karto hataa Baydhabo oo ma aadi karto Afgooy macnaha wadankii kooxihii ma baxayaan macnaha kooxan waxay ku yihiin kaliya gobolka Banaadir macnaha horyaalkan horyaal ku kaliya hadda gobolka Banaadir macnaha hadda anaga waxaan ku nool nahay wadan oo macnaha dadkiisa aan dhulka mari karin oo hawada marayaan macnaha maanta Soomaali macquul ma aha waa dulna oo kaliya ha macnaha hawaaskina ayaa marnaa macnaha ciyaar hadda kooxda Hagen haday baxdo ay tagto macnaha hal game oo kale Baydhabo u tagaan ama ay soo ciyaarta kale ay kismahay aadaan oo kale macnaha bixitaan sabaxid isbedel baa dhacay laakiin adigoo macnaha intaas oo macnaha one season oo joogay kali gobolka xaafad kale magaalada joogay gobolkaas kali joogay aad baxdo Kenya aad oo kale waxa lagu helaa international experience waxa la hayo macnaha wixii ma xamili kartid aniga kulay saan u arko way wali macallinkan uu ku dari kara laakiin waxa aaminsanahay saan ku sheegay haddii la helo ay kooxihii ay dhaafaan gobolka Banaadir ay socdaan ay soo noqonayaan baxayaan ciyaaryahanku wuxuu helaa confidence waxa la hayo oo macnaha qalqalkaas iyo waxa uu ka baxayna uu ciyaaryahan wuxuu noqonaa oo safarkii la qabsaday ciyaaryahan aan safar la qabsan oo macnaha 1 mile soconayo marka waxa Muqdisho ka dhisan ciyaar saaxiibtinimo example Puntland oo kale ma tagi karaan maxaa diiday inay example ay tagaan magaalooyinkaas ma arin dhaqaale ayaa u diidaysa inay travel gareeyaan waa dhul nabadeed waxa way dheeli karaan marka maxaa keenay macnaha hadda fiiri hadda wadankan aan ku noolnahay oo kale macnaha Premier League wadankan oo kale kooxaha macnaha way isdhaafayaan way soconayaan Soomaaliya gobolka gobol ay aadayaan laakiin hadda anaka wili macnaha ma noo saamaxayso in kooxaha ay ka baxaan ama inay qaataan macnaha baabuurkooda qaataan dhulka inay maraan meeshii ayaga nabad tagaan soo dheelaan hadda meesha ayaga socdaan waa inay ka helaan koox oo ayaga sam oo macnaha isku level ay yihiin ay ciyaari karaan inay helaan oo dadka meeshaas jooga loo dhiso garoomo la sii kooxa kale oo macnaha under academy loo furo macnaha waa macnaha process oo aad u dheer laakiin hadda waa soo haynaa laakiin waxaan aaminsanahay koox kasta oo dalka ka baxdo in ay aqabad ku tahay experience la'aan mafta Salim horta soo Ismaaciil sheegay experience wax weyn waaye ma aha